بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa cabdullaahi janno waxaan halkan rabaa inaan kasii wado faaqidaadii qoraalka oo aynu horay u bilownay waxaan rabaa marka hore inaan zul taago hordhac khaasatan waxaan rabaa inaan faaqido aaladaha sheekada ee ku socoto sheekadu waxay ku socotaa inta badan ilaa iyo 6 waxaa jirto aaladood oo loo isticmaalo ha yeeshee waxaan isdul taagayaa 4 ka mid ah midda koowaad waa plot, waa setting oo 2 ah, character iyo theme oo 4 ah. plotku sidiisaba waa silsilada ay sheekadu ku socoto. settingkaasna waxaa loo yaqaanaa waa goorta iyo xilliga ay sheekadu dhacayso. characterna waxaa loo yaqaanaa jilaha sheekada ama cidda sheekada wado. themena waa mawduuca ay sheekadu ku saabsan tahay. haddaan ku bilaabo marka faaqidaada plot, sideedaba jiritaanka plot wuxuu ku xiran yahay jiritaanka conflict ama isku dhac inuu meesha jiro. haddaan tusaale usoo qaato, sheeko ma noqon karto haddii qof uu qoro beri baa waxaa jiray 2 nin oo yiraahdo rooraaye iyo boodaaye, way baxeen, badday galeen, doon bay raaceen, way soo kalluumaysteen, habeenkay soo noqdeen, reerkoodii iyo caruurtoodii bay kalluunkiis cunno siiyeen. sheekada saasay ku dhamaatay. taas sheeko ma noqon karto waayo kuma jirto wax isku dhac ah ama conflict meesha kuma jiro. laakiin haddii qofku uu dhaho rooraaye iyo boodaaye ayaa soo wixii ka lahay, doontii iyagoo saaran oo kalluunkii dabanaya ayaa waxaa dul yimid markab dagaal oo ah kuwa xeebaha Soomaaliya ilaaliya. isla markii waxaa dareemaysa akhrista ahaan meesha inuu isku dhac dhici doono. waxaa is oran doontaa talow ma la xiri doonaa, talow miyaa la toogan doonaa, talow ma waxaa loo qaadan doonaa inay yihiin burcad badeed, talow luqad ma yaqaanaan ay isku furtaan. marka waayo waxaad filanaysaa isku dhac inuu meesha dhici doono. taa markuu conflict uu meesha soo galo baa waxaa la yiraahdaa waxaa jiro wax la yiraahdo plot. isku dhacana sideeda wuxuu ku yimaadaa 4 nooc. mid waxaa la yiraahdaa man versus man, man versus society, man versus himself iyo man versus nature. ilaa 7 waa la gaarsiiyaa, laakiin 4taas baan ku ekeysiisanayaa. midda ah man versus manka waa dad ishaya oo isku dhagan, oo waxaa anaga u naqaana ah atoore iyo laadir waxaan dhahna oo kale, oo waxbaa ka dhexeeya dan bay waxbay isku diidan yihiin. marka mid unbaana aakhirkii laga reynaya oo reyn doono. haddaa dhanka diinta ku noqono qur-aanka kariimka waxaa arkaysa meelo badan oo rag ishayaan. waa aragtay nabiyullaahi aadam calayhi salaam labadiisii wiil qaabiil iyo haabiil waatay isqabteen oo laisku qabtayna qurbaankii laga aqbalay haabiil waatuu kii kalenu yiraahdo maya aniga inaan ku dila mooye ma fadhiisanayo. marka isqabsadeen isku dhacay isku dhaceen baa waxaa sheeko ahaan loo yaqaanaa man versus man ama dad ishaysta oo aakhirkiina mid baa guuleysanayo. hab labaad oo ay plotku ku yimaado waxaa la waa man versus society, ama markii ruux iyo bulsho isku dhagan ay iska hor yimaadaan. tusaale fiican waxaa noo noqon kara asxaabul kahfi oo kale, dhalinyartii markii godkii ay u qaxeen ay dhaheen bulshadan lama noolaan karno, dambigoodii waxaa badan sanam caabudkoodii iyo maaragtay shirkigooda batay, aan ka dhex baxno, oo ay dhalinyarta buurta galeen. tusaale kale sidoo kale waxaa noqon kara nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu qaarul xira uu ku jiray godkii uu ku fikri jiray, waatuu asagana uu maaragtay karaahiyeystay habkii ay carabtii xilligaas nooleed intuusan nabiga noqon calayhi salaatu wasalaam ay isku caburin jireen, ay isku dulmin jireen, ay sanamyada badan u caabudi jireen. waatuu asna isaga dhexbay calayhi salaatu wasalaam. marka taa waxay noqonaysaa hab kale oo ay ku dhacdo qof sheekadu ay ku socoto ah qof iyo bulsho ishaysto. hab saddexaad waxaa jira loo yaqaano man versus himself ama ruux naftiisa la harjadaya. wuxuu noqon kartaa ruux inuu cilmi doon yahay oo jahli uu ka cararayo, waxay noqon kartaa qofka inuu fulinimo ka cararayo uu geesi inuu noqdo rabo,
waxay noqon kartaa qofki inuu bakhaylnimo ka cararay uu deeqsinimo uu rabo inuu naftiisa baro. marka waa un harjadka tirada badan oo qofka iyo naftiisa isku mashquulsan tahay. aayad ilahna waatay ahayd ilaahay nafta ma bedelayo ma xataa yuqayiru maa bianfusikum, ilaa dadka iyaga isbedelaan naftooda ay maaragta ka adkaadaan. marka taa waxay kutusinaysaa sheekooyinka qaar ba waxay kusalaysan yihiin qof laadar kalma lahayn asaa naftiisa sheekadhan ku socotaa suu macnaha uga guuleysan lahaa carqaladaha ay naftiisa ku hayso, ama ha noqoto fulinimo ama ha noqoto bakhaylnimo ama ha noqoto xasadnimo ama wax kale. hab afraad oo sheekadu ku socoto plotka weli ku jirnaaye waxaa kamid ah man versus nature, ama ruux la lagdamaya abuurka ilaahay dabiiciga ah sida duufaanta, fataha webiyada, waxaanaan dhahno kale tsunamiga, iyo dabeelahoo kale. waxaasoo dhan tusaale waxaa usoo qaadan karnaa nabi nuux calayhi salaam wiilkiisii markii uu badda biyihii ay soo fataheen, waatuu wiilkii yaraa uu dhala uu yiraahday aabo soo fuul doonta abadbaadide. wiilkiina waatuu yiri maya aabo waa dabaalanaya, buurtaasaan fuulayaa. isla markiina wiilkii waxaa laqay biyihii baa maasheeyey oo harqiyey, sababtoo ah abuurka ilaah iyo qofka awoodiisa isma qaabili karaan, oo inta badan waxaa xoog badan abuurka nature. haddaan nasiib dara anaga Soomaali ahaan haddaan isku soo leexinana maalin waxaa maqalnaa dhalinyaro tahriibtay, sidoo kalena waxaa maqalnaa dhalinyaradaas oo intaysan gaarin meesha u socdeen doontii la qalibmantay ama badii lagu daadiyey oo xeebtii ay soo caarisay meyd tahriibayaal ah. marka taasoo kale sheekada noocaas oo kale waxay noqonaysaa qof iyo abuur is haysto. haddaan plotka ka gudbo oo aan aado waxaa loo yiraahdo faaqidaada setting asaga labo buu u kala baxaa, waa goobta iyo goorta, ama meesha sheekada ka dhacayso iyo waqtiga ay dhacayso. waa muhiim tan in la ogaado, waayo qofka akhrisanaya waa in aad tustaa jilaha meesha uu ku dhex jiro. haddii ay tahay xilligii sayid maxamed cabdulla xasan haddaa wax ka qoraysid, waa in qofkii aad markaa aadan oran oo kale wuxuu ku noolaa guri elevator leh ama guri internet leh buu ku dhex noolaa, ama aadan oran raggii u dagaalamayay sayidka waxay xirnaayeen suud iyo tie madow iyo telephone wateen. waxaas ma oran kadhid, waayo xilliga isaga ay sheekada dhacayso iyo waxaa isdiidayo waaqaca Soomaaliya say ahayd. marka setting wuxuu ku saabsan yahay inaad ka run sheegtid xilliga sheekada dhacayso iyo meesha sheekada ay ka dhacayso hab dhaqankeeda siduu ahaa, oo qeybtaas waa qeyb iyadan muhiim sheekadu ah. qeybta saddexaad iyadan waxaa la dhahaa character. haddaan iyada faaqido qofka jilaha sheekada jilayo, runtii dadka akhrista waa inaad bartaa siyaalo kala duwan baana loo bari karaa. tusaale waxaa kamid ah dialogue midda koowaad, ama in laga hadalsiiyo jilaha. halkii aan oran lahayd kasoo qaad qofka waa baqayl ama qofka waa xaasid, qofkii asaa ka hadalsiin kartaa. tusaale rooraya iyo boodaya markay soo kaluumaysteen, haddii iyagoo xeebta yimid uu nin miskiina uu yiraahdo maandhooyino bal kalluunka wax iga siiya, haddaa rabtid inaad muujisto inay baqayl yihiin ama xaasidin yihiin ama ay yihiin dad dabeecad guracan leh, waxaad oran kadhaa hadal igaad ka hadalsiinaysa. waxaad leedahay waxay yiraahdeen war maa shaqaysatid xoog intaas ku leeyahay. marka intaa ka hadalsiisad qofka akhristaa wuxuu isla markiiba baranayaa qofkan jilaha ah ama characterka meesha ku jira sheekada ay wada in ay wax uusan hab fiican u jawaabin, sidaa ajligeedna qofkii u fasiri kara ma waa baqayl ama waa xaasid ama waa qof xumaan doon ah. hab labaad oo qofka lagu bari karo akhristaha waa waxaan la yirahdo mannerismka. isna wuxuu dhacayaa hab dhaqanka qofka jilaha ah. tusaale rooray oo booday aan ku noqono markay doonta kasoo degtaan iyagoo kalluunkii wato baa miskiin ka hor yimid, markaasuu wuxuu yidhaa maandhooyino bal kalluunka wax iga siiya. marka halkaad oran lahayd way u diideen ama way kala bakheeleen, baa waxaa oran kadhaa ficil baad ka keeni kadhaa ah intay haruufeen oo ay koray hoos u eegeen si yasma leh
ayay garab mareen oo inkireen. taa marka waxay kutusinaysaa iyadana hab dhaqankooda inuusan fiicneen. marka waa hab aad dadka akhristaha ku bartid cidda sheekada ay wado. mid kale oo aan rabin inaan isdul taago annaga Soomaali ahaan, jilaha ha ka saarin xadka bini'aadnimada oo qofkii malaa'ig ma wada aha, shaydaanna ma wada aha. waxaa la rabaa inaad qofkii muujisid inuu bini'aadan yahay, meelna uu ku liito, meelna uu ku maaragtay fiican yahay. laakiin ha ka wada dhigin qofkii wax la wada tuuray oo macnaha dacar ah, hana ka wada dhigin qofkii wax wada fiican oo malaa'ig iyo malab ah. oo wixii waa bini'aadan, wanaagna waa laga filan karaa, dhaliilna waa laga filan karaa. haddaa halkaas uga gudbo faaqidaada jilaha, aan u gudbo qeybta ugu dambeysa oo ah faaqidaada themeka ama mawduuca. mawduuca ama maadada ay sheekadu ka hadleyso waxaa loo yaqaanaa theme. qasab themku sidiisaba wuxuu noqon karaa jacayl, wuxuu noqon karaa colaad, wuxuu noqon karaa qaxootinimo, wuxuu noqon karaa tahriib, wuxuu noqon karaa maaragtay wadaninimo, wuxuu noqon karaa xagjirnimo. midna ogsoonaada, qasab maaha in sheekadu ay hal mawduuc ku ekaato, lakabyo badan ayay yeelan kartaa. haddaan qur-aanka ku noqono suuratul yuusuf markaa akhrinaysid, hal lakab ma ahane waxaa ku hoos jira lakabyo badan baas dul saaran. meel suuradda waxaad ka dhandhansanaysaa in sabarka u fiican yahay in la samro. meel kale suuradda waxaad ka dhandhansanaysaa in dhowrsanaantu ay fiican tahay sida nabi yuusuf uu sameeyey calayhi salaam. meel waxaad kaloo ka dhandhansanaysaa iscafiintu inay fiican tahay oo nabi yuusuf calayhi salaam uu walaalihiisi aakhirkii cafiyey. lakab kalena waxaa kala soo bixi kadhaa iyadana suuraddaas ah in ammaanadu ay fiican tahay oo nabi yuusuf calayhi salaam markii laga dhigay wasiirka dhaqaalaha boqortooyadii uu markaas la shaqeynayay inuu si aamin ah oo hufan oo daacadnimo ula shaqeynayay. waxaasoo dhan baa marka kala dhex bixi kadhaa oo sheekadu marka qasab maa inay hal lakab yeelato, waxaa laga yaaba in mawduucyo isdul saaran ay yeelato. sidoo kalena mid kalena ay jirto, qoraaga ma xakameyn karo sida uu akhristo u fasirto mawduuca. haddii mar qoraagu uu qoro hadal nin si u yiri ninna si u qaaday bay meesha noqonaysaa. qasab ma aha sida loo fasirto inuu qofkii wax qoray ma xakameyn karo. tusaale cad waxaan ugu filan hadda qur-aanka kariimka oo kale, 4 imaamee madhabteena imaam shaafici iyo imaam maalik iyo axmed bin xambal iyo abu xaniifa, kulligood waxaa arkaysaa in ay si u fasirtaan kala duwan, ay la soo bixeen fiqi iyo faham ka duwan midka kale. taasoo marka haddana kulligoodii ay sax wada noqonayso, waayo hal si looma fasiran karo waxa sheekadu ay tahay ama waxa qoran. qof xukumi karana ma jirto haddaan lahayn wax cad daliil ah oo lagu beeninayo wixii. marka halkaas iyadana waxaan uga gudbaynaa faaqidaada theme. haddaan soo gunaanado, aaladaha sheekada waxaa ka mid ah ee ku socoto way badan yihiin, ilaa iyo 6 waa la gaarsiiyaa, laakiin 4 ugu waaweyn waxaa ka mid ah plot oo ah silsilada ay sheekadu ku socoto, setting oo ah meesha iyo goorta ay sheekadu ka dhacayso, character oo ah jilaha ama cidda sheekada wado, theme oo ah mawduuca ay sheekadu ku saabsan tahay. halkaas ayay inoo joogaysaa. waana mahadsantihiin. waxaadna nagu soo booqan kartaan Facebook page-ka la yirahdo qalinmaal. insha allah internet hadda waxaan ku guda jirnaa inaan sameyno la dhaho www.qalinmaal.com. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.